السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijkeena cunto kariska ee Lifeline Soomaaliya. maanta halkan waxa aanu ka tusi doonaa sida loo sameeyo jaamka. waxa aanu isticmaalana waa fruits la yiraahdo LOQUOT. waa fruits aan caan ahayn, midhahaas oo rangekiisu yahay jaallo, midho badanna ay gudihiisu way ku jiraan oo madow. marka qaarkood waxa ku jira laba, marmarka kalena waa ilaa 3 ama mid ama 4. fruitkaas oo macaan iyo dhanaan ay isku jiraan, dhadhankiisu uu yahay. marka fruitska adigu aad jeceshahay ama aad ka heshid baad isticmaali kartaa, ha noqoto liin macaan, tufaax, pears ama strawberry ama iyo waxyaalaha la mid ah. fruitskan maanta aanu sameynayno shaqada ugu badan uu leeyahay waxa weeye sida fruitskan shaqada weyn uu leeyahay waa sida midhaha looga guri lahaa. markaad midhaha aad ka gurtid waxaad sameynaysaa baaquli baad ku ridaysaa oo waad meydhaysaa. markaad meydhidna waxa aad u baahan tahay waxa weeye 2 liin. ugu fruitkaas waa 2 kilo, marka waxaad u baahan tahayna waa 2 liin iyo 4 koob oo sokorta caadiga ama custard sugar, iyo citric acid adigoo isticmaalaya 2 malqacdood oo yaryar ama malqacad weyn, iyo waxaad u baahan tahay 4 koob oo biyo. marka waa intaas oo kaliya waxaad u baahan tahay. marka fruits waxaad ku shubaysaa digsigii ama sufriyadii wax lagu karinayay. marka halkan waxa aanu isticmaalayna maanta waa jikadii caadiga, cooker isticmaali mayno ama gas cooker isticmaali mayno. waxa aanu isticmaalayna waxa weeye waxaanu jikada u isticmaalayna waxa weeye dadkeena Soomaaliya jooga ama gobolka ay Soomaalidu degan tahay ee Kenya ama Ethiopia, tuulo yar ha joogaan ama magaalo weyn, hadday haystaan jiko waxaanu doonaynaa inay ogaadaan inay jikadooda wax ku samaysan karaan. marka halkan waxaad sameynaysaa sokortii ayaad ku daraysaa. markaad ku dartid sokortii fruitskii, liintii baad ku miiraysaa adigoo maaragtay markaa shaandheynayo oo lafihii aad ka reebaysid. waana 2 liin oo dhan. marka waxa weeye ulajeedadeenu aan markaan doonayna waxa weeye inaan u gudbino dadkeena sida waxyaalaha loo sameeyo. waxyaalahaas ha noqdaan wax guriga lagu isticmaali karo ama wax jiraanka laga iibin karo ama maqaayadaha laga iibin karo ama xataa dukaamada laga iibin karo. marka waxa weeye aan ku soo noqono halkii biyaha ayaa lagu shubaya. marka biyaha aad ku shubtid, wax kale aad meesha aad u baahan tahay ma jiro. waxa weeye dabka saar. marka haddaad ku karaysatid cookerkaaga isticmaal, mar haddaad haysatid gas cooker waad isticmaali karaysaa. jikada haddaad haysatidna jikada ayaad ku isticmaali kartaa jikadaada. marka dabka aad saartid waxaad u daynaysaa in muddo ilaa uu aad iyo aad u karkaro. midhahan oo ah mid aad u adag wuxuu u baahan yahay dab aad u kulul si uu u bislaado ama uu u jilco ama muddo dheer inuu dabka saarnaado. marka haddaad doonaysid inaad si dhaqso aad u dhamaysidna waxaad isticmaali karaysaa mixer ama food processor si aad xoogaa aad mashiinka ugu dhufatid. hadduu waqtiga aanu ciriiri kugu ahayna dabkiisaas ayaad u dayn kartaa ilaa uu bislaado, uu aad iyo aad u jilco. haddaa waqtigan uu kugu yaryahay aad degdegsan tahayna processorka iyo mashiinadaas ayaad gelin kartaa si uu
uu jajabo markaa isna dabkiisaas aad ku celisid sidii uu dhaqso ugu bislaan lahaa marka mixerkii markaad ku dhufatid waa adiga 2 daqiiqadood ama daqiiqad baad ku dhufanaysaa fruitskii weli sidiisu muuqda sidaas aad u burburinaysaa hadana sidaan aad burburin karina waxa weey waad deynaysaa dabkaad ku deynaysaa isaga jilcaya markaa kala tegaya dabkii ayaa markaa aad ku celinaysaa markaad mixerkii aad ku dhufatay ama food processorkii aad ku dhufatay dabkaagi markaa aad ku celisid xabaar baad markaa aad sugaysaa adigoo daboolay marba waad eegaysaa waxa aad jikada isticmaalaysaa malqacadaada adigoo ku warwareejinaya si aanu hoosta u qabsan maxaa yeelay biyihii way yaraanayaan markay yaraadana waxaa laga yaabaa in hoosta uu qabsado hoostan hadduu qabsadona waa u gubanaya marka adigoo sii eegaya waxaad haddaad aragtid inuu sokor u baahan yahay sokortaasoo keenaysa dhegdhega uu jaamku u leeyahay sokortiiba marka aad ku kordhinaysaa marka waa adiga mar walba ayaa indhahaaga ayaad wax ku xakameynaysaa waad eegaysid inuu jaamkii dhegdheg yeeshay iyo in kale marka waad sugaysaa adigoo mar walba eegaya oo ka ilaalinaya si aanu hoosta u qabsan markaad aragtid inuu noqday jaamki sidii aad doonaysid marka waad ka qaadaysaa dabka adigoo quraaradaadii safeeyo biyo kulul intaad ku meedhay oo aad qalajisay oo quraaradii oo sii kulul ayaad markaa aad fruuskii aad ku shubaysaa waxaad ogaataa dhaladaada markuu uu yahay kulul yahay jaamkaagan uu kulul yahay oo aad jaamkaad ku ridid inuu muddo dheer uu ku ooli karo meel aad dhigan karaysid marka jaamkaagiina waa diyaar waa wax hool yar marka haddii aad karaysid inaad mar walba jaamkaaga aad samaysid bishiiba mar maaha wax aad mar walba samaysanaysid waa wax bishiiba mar aad samaysanaysid oo aad gurigaaga ku isticmaali karaysid waa ahlan wasahlan waa wax adiga ku fudud maxaa yeelay kuma jiraan wax preservative ama chemical oo dhan waa shay caadi ah aad samaysatay gurigaaga aad ku samaysatay haddii uu gacantaadu ilaahayna ku barakeeyna waxa weeye markaa dee waxaad samaysan karaysaa wax aad maaragtay aad ku ceyshtid jaamkaaga uu noqdo jaamka ugu sito magaalada ama tuulada aad joogtid maqaayadaha iyo dukaamada ama dadka ama magaalada jooga ayaa ku imaanaya koronaya bal noo sameeyanka jaamka marka waa wax wiil nin gabar ama hooyo ay samaysan karayso marka tan waa information aanu idin soo diyaar gareynay anagoo jecel mar walba in aanu idin soo gudbino waxyaalo noo waxtar weyn noo leh marka idinkuna haddaad wax aad rabtaan inaad ogaataan sida loo sameeyo min fadlakum nala soo xiriira oo noo sheega anaka wixii raadinayna haddaanu informationkaan hayno waanu idin soo gudbinaynaa wassalaamu calaykum